الله maanta uu barnaamijkan wadnaa uu ka duwan barnaamijyadii hore waxaanu booqasho ugu tagnay hooyo haysata 5 caruur ah mana haysato meel lacag ka keento ma haysato waxay caruurta ku biiliso 5 caruurta qaarkood way xanuunsanayaan sida fiidiyowen ka muuqataba qaarkood ka nooleeya u socda oo dawooyin baa u socota mana hayso meel ay dawooyin ka keento waa hooyo ku jirta guri kiraa waraysigan la yeelanay ayaanu ka dhaxdhansanay wax kaste ay hooyadaas u baahan tahay ma haysato cid beelisa ma haysato qof daryeela inagayna sugaysa walaal waa hooyada ay caruurteeda sida yihiin farihii waa go'ay meel kasta way ka xanuunsanayaan mana hayso wax allaale waxay ku daweyso hal su'aalo aan ku weydiinay waxay tahay xaaladaada iyo noloshaada faahfaahin ma naga siin kartaa waan isku siinay xaaladaydu waxa weeye dadka yar baan haystaa aabahoodu igu dayacay reerkoodu ma soo sheegtaan nolol adag baan ku wada nool anigii ciyaalkan waxa la waxaan hayaan ma jirto guriga idinka arkay hoos maray waxaan ku dhadaayay guri kiraabaan ku jiraa waxaan ku dhilay kuwan way iga bukaan inta yareena kale way iga bukaan waxa la waxaan haystay ma jirto ilaahay dartii ummadda Soomaaliyeed inay soo caawiso yaan rajeynaya insha Allah hooyo waqti intee laga bay maxay heeday xaaladdan ay ku haysatay xaaladdan muddo 9 bilooda adigu muddo 2 sano iyo adigu 9 bilood noqonaysa xaaladdan way haysatay laakiin ma bay noogu xunta ma bay xaaladdan noogu adagta marka caruurtan waxaan ku waxaan hayay ma jirto way bukaan waaga bareega ka dhaca dhakhtar baan ula galaa baliyeega daweey cidina ma daweyso cidina ma dhakhtarso waan soo celiyaa iyaga xanuunsanaya abadan inaan kale waa bukaan soo mar walba dhakhtaru ma la taagan waxay cunaan iyo waxay xidhaan iyo waxay wadaan toona male xaalad dad bay ku noolin hooysan noo sheegtay gurigan kiro ayaad ku degan tahay faahfaahin ma naga siin kartaa maxay heeday maadaama aad kiro ku jirtid xaalkeeda iyadna inta kirada iga bixisa islaam bay iga bixisa waxaan ku wari islaantaas waa de markay hesho ayuun bay bixisaa marka qaar baan iga bixin baa xaaladda ku dhacaaba in la iga saaro aan marka qaar ku sigtaaba hooyo waan gartay saddexda waqtiye maxay heeday cuntada maalin madweyda maalin waa heshaa kulay saan filayo marka yadna waqtigaana wax naga taas waa ta ugu daranba taas waa tan nolosha ugu daranba qof cidibo u baxay cidibo shaqo tagay meel loo xiigma yimaada wala yebilayga ta watanubadka waay meel loo xiigma yimaada maxaan ku raday markan helana waan ugu shubaa markan waayana way seexdaan way su'aasha kale ku weydiina waxa weeyaan qoyska caruurta ay ka dhashay wax qacan qabada ma ka heshay ma soo wareystaan ba awlaad halka ku noolyiin ba lama yiraahdo kamana rajeynayo waayo dawaayn dhixoolinba way ku dayaceen umada ilaahay way wada walaalo hadii wax lay taraayo walaal waa bil Ramadaan ilaahay ayaa kugu naxariisanaya soo caawi hooyada nabiguna sallallahu alayhi wasallam sin wada ogna wuxuu yiri irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa warhooy dhulka isugu naxariista samada halidinka soo naxariiste waxaad ugu soo hagaajisaan wax kastoo aad awoodaanba lambarka shaashada idinka muuqda